Okay, iPhone 16 ayaa goordhow soo bixi doona. Haddii aad ku fikiraysid iPhone 16 iyo 15 keebaa wanaagsan ama midkee iibsadaa, muuqaalkaani ayaa kaaga jawaabi doona. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. iPhone 16 afar isbedel waaweyn ayuu hadda ku yimid. Sidoo kale 10 waxyaabood oo yaryarna hore u naqaanane ayadan way ku yimaadeen. Waxaan ka bilaabaynaa afarta isbedel ee waaweyn ee iPhone 16 lagu soo kordhiyay. Marka hore 4 sano kadib Pro iyo Pro Max-ka cabirkooda aad ayaa loo soo weynay. iPhone 16 Pro cabirkiisa waxaa laga soo dhigay 6.3 inches halka iPhone 16 Pro Max-kana laga soo dhigay 6.9 inches. Daacadii arrintan inay tahay mid wanaagsan uma maleynayo. sababtoo ah iPhone-ka marka hore cabirkiisa kuwa yarka waxay ahaayeen 6.1 inches. Cabirkaas ayaana mid aad u wanaagsan oo quman sababtoo waxaa ku qabsan kartaa hal gacan ayaa ku isticmaali kartaa. sidoo kale haddii marka hore Pro Max-ka 6.7 inches ay ahaayeen ayaga ayaa aad u weynaayeen. fikradeyda cabiradani mobilka iPhone-ka waxay ka dhigayaan kuwa aad u waaweyn. sidoo kale waxay hoos u dhigayaan bezeliska, laakiinse waxba iskama bedelayo culayska mobilkaada iPhone-kaada. haddii dad naga mid ay qorsheynayaan inay iibsadaan noocyada Pro Max-ka waa inay isku hubiyaan marka hore cabirka uu iPhone-kooda u yahay. haddii uu mid weyn yahay waxaa la yaabaa inay iska dhaafaan. mid labaad waxaa lagu soo kordhiyay iPhone 16-ka dhammaan batanka loo yaqaano capture button. marka taleefankaada sidaan u qabatid qaybtan ayaa waxaa lagu soo kordhiyay batanka loo yaqaano capture. capture-kaani wuxuu kuu qabanaa marka aad riixdid wuxuu diiradda ku saaraa shayga ama qofka. marka xoogaa riixdidna wuxuu sawirkaaga qaadaa qofka ama muuqaal ayaa ka duuba kartaa. sidoo kale marka qaybta midig aad riixdid iyo marka bidix aad riixdid wuxuu kuu suubinaa zoom in iyo zoom out. hadda waxaa ku fikiraysaa arrintan inay wax weyn tahay, laakiinse hore waxaa u suubiyey shirkadda Sony, mana ahan wax cusub. midda kale inteena badan waxaa iska qaadnaa sawiro toosane. sawiradaas toosane waxaa dhiganaa TikTok-ka iyo sidoo kale Instagram-ka. sidoo kale waxaa iskugu dirnaa WhatsApp-ka. sidaas darteed inta badan aniga xitaa ma awoodno inaan u isticmaalno badhankaas sida ay doonayso shirkadda Apple. tan saddexaad hadda sida cad iPhone 16 Pro iyo Pro Max-ka waxay ku imaanayaan batanka loo yaqaano action button si la mid 16-ka iyo 16 Plus-ka. sanadka hore batankani wuxuu qabanaya howlo yar sida moodka oo kale, laakiin hadda waa la soo horumariyay. sidoo kale sanadka hore 15 Pro iyo Pro Max-ka ayaa batanka kaliya bas ayuu ku yimid, laakiin hadda dhammaan 16 noocyadiisa batankan waa lagu soo kordhiyay. mid afraad iPhone 16 iyo 16 Plus-ka kaamirada qaabka u taalay waa la soo bedelay oo waxaa laga soo dhigay qaab toosan oo vertical. waxayna isku mid yihiin iPhone 10 ay isku mid yihiin. sidaas darteed waxaa ku duubi kartaa spatial videos. sidoo kale waxaa ku daawan kartaa Vision Pro. hadda waxaa u maleynayaa in aad loo yareeyay kaamirada. taas micnaheedu waxay tahay iPhone 16 iyo 16 Plus-ka inay u ka doonaan kuwa cusub oo ay ka doonaan doonaan iPhone 13-ka, 14-ka iyo 15-ka. kuwan waxay ahaayeen afartii isbedel ee waaweyn ee ku imaan karaan iPhone 16 noocyadiisa kala duwan. laakiinse waxaa jiro kuwa yar oo muhiim ku ah arrintaas aan ka hadalno. iPhone 16-ka iyo 16 Plus-ka waxaa la soo horumariyay qaybta processor-ka oo waxay ku imaanayaan A18 chip, halka 16 Pro iyo Pro Max-kana ay ayagana ku imaanayaan A18 chip Pro. waxay ka awood badan yihiin oo ka sareeyaan A17 chip-ka kaasoo ku yimid iPhone 15-ka. micnaheedu waxaa ula jeedaa haddii A17 chip-ka uu awood badnaa sidoo noqon karaa A18-ka. iPhone 16 iyo 16 Plus-ka waxaa laga soo dhigay RAM-kooda 8GB si la mid Pro iyo Pro Max-kana ayagana 8GB ayaa laga soo dhigay. dhammaantood waxay ku shaqeynayaan Apple Intelligence cilad la'aan. sidoo kale waa sababta iPhone 15 iyo 15 Plus-ka aysan ugu shaqeynin Apple Intelligence, sababtoo ayaga ma ahaynin RAM-kooda 8GB. sidaas darteed kuma shaqeynayaan Apple Intelligence. hadda waxaan ka hadlaynaa qaybta bateriga. iPhone 16 noocyadiisa kala duwan baterigiisa ma la soo hormari ama hoos u dhac ayaa ku mid waxaan ka hadlaynaa marka ugu horeyso awoodda bateriga. iPhone 16-ka iyo 16 Pro iyo Pro Max-ka saddexdaasba awoodda baterigooda waa la soo hormari, halka laakiin 16 Plus-ka awooddiisa hoos loo dhigay. arrintaasna waxay dhib ku tahay 16 Plus. Apple waxay soo kordhisay xawaaraha charger-ka oo waxay ka soo dhigtay 40 watt qaybtaani fiilada charger-ka ama wire charger-ka. sidoo kale waxay soo kordhisay qaybta 20 watt ayay ka soo dhigtay MagSafe-ka, laakiinse weli ma gaarayso noocyada mobilada Android-ka, sababtoo Android-ka asiga charger-kiisu waxaa waaye 45 watt. saas darteed xoogaa waxay ku tahay aad ayuu ugu soo dhawaatay shirkadda Apple mobilada Samsung-ka. sidoo kale charger-kani aan sheegayo waa kaliya bas noocyada Pro Max-ka.
micnaheeda ma ahan in waqtiga lasoo yareeyo keliya waxaa lasoo hormariyey jaajarka sidoo kale qaybtaani wireless jaajarkeen waxaa laga soo dhigay 15 watt ilaa 20 watt MagSafe midaan hala yaabin dhammaan waxyaabahan aan ku sheegayo mid ayaa loo iibinaa qiimo sare ayaan lagu iibinaa hadda waxa uu maaneynaa qaybta dhalada Pro iyo Pro Max kaliya ma ahan dhalada in la soo weynay sidoo kale waxaa la soo badiyay iftiinka dhalada waxayna ku imaanaysaa nooc cusub loo yaqaan M14 OLED panels arrintaani waxaa ka caawinaysa shirkadda Apple shirkadda Samsung sidoo kale waxaa aad loo yaray screen-ka dabka uu cunaay iyo bezeliska oo dhinacyadana aad ayaa loo soo yiri 15 Pro iyo Pro Max sidoo kale ayagana bezeliskani hore ayaa loo soo yiri waa arki doonaa haddana sida loo sii yaray noocyada iPhone 16 waxa uu gudbeenaa qaybta ugu muhiimsan ee kaamirada saddex waxyaabood ayaa lagu soo kordhiyay iPhone 16 Pro iyo Pro Max waxay ku imaanayaan 48 megapixel ultra wide sensor oo cusub sawirada ay qaadayso qaybtaani ultra wide aad ayaa loo soo hormariyay sidoo kale qaybtaani pixelkeena waa la soo hormariyay mid labaad iPhone 16 Pro waxaa laga soo dhigay 5 times zoom periscope lens oo kaliya markii hore iPhone 15 Pro Max ayuu ku yimid lensigani laakiin hadda 16 Pro iyo Pro Max waxaa lagu soo kordhiyay zoomkani oo 5 times mid saddexaad waxaa suurtagal in aad hoos loogu dhigo iftiinka aad u badnaaya sababtoo arrintaani dhib ay ku qabeen mobilada iPhone hadda waxaa la soo kordhiyay new anti-reflective coating technology iPhone 16 Pro iyo Pro Max aad ayay kaga wanaagsan qaybta ku hadalka markii la barbar dhigo 16 iyo 16 Plus sidoo kale marka la barbar dhigtid noocyada iPhone 15 hore sababtoo waxaa lagu soo kordhiyay Snapdragon times 75 kaas ayaa aad u saaciday qaybta ku hadalka waxay u badan tahay iPhone 16 Pro iyo Pro Max inaysan aad u kulaa doonin sida 15 Pro iyo Pro Max sababtoo waxaa lagu soo kordhiyay graphic cusub oo loo yaqaan Gravity kaasoo ka hortagay kuleelka aad u badnaa ugu dambeyn qiimaha iyo noocyada ku imaanay iPhone 16 noocyada kala duwan lacagaha la filayo in la iibiyo US wadamada kale way ka duwan yihiin sug iPhone 16 iyo 16 Plus kuma imaanayaan 128 GB waxay ku imaanayaan 256 GB sidaas darteed qiimaha iPhone 16 aad ayuu u badanaa marka eegno midabadii ugu dambeeyay waxay ahaayeen kuwa qafiif iPhone 15 noocyadiisa kala duwan midabo qafiif ay ku imaadeen laakiinse markaan waxaa la filaa inay ku imaadaan midabo xooggan haddii aad jeceshahay midabka jaalaha waxaa ku dhageysaa iPhone 15 kaliya oo kuma arkaysa midabka jaalaha iPhone 16 iPhone 16 Pro iyo Pro Max kuma arkaysid titanium blue kaliya waxay ku imaanayaan afarta midab laakiin waxaa suurtagal mala awaal inay yihiin midabadaani waxaa ogaa doonaa arrintaani markii la soo saaro noocyada iPhone 16 arrintaani waa mid laga murgay iPhone 16 iyo 16 Plus waxay ku imaanayaan 60 Hz dhalada shirkadda Apple waxay soo kordhisay Dynamic Island shirkadda Apple waxay soo kordhisay Action Button shirkadda Apple waxay soo kordhisay 48 megapixel dhammaan waxyaabahan aan ku sheegay waxay ku yimaadaan noocyada Pro iyo Pro Max kadib ayaa kuwa hoose ayaa lagu soo kordhiyaa ma dhihi karnaa shirkadda Apple waxay suuq weyn u suubisaa marka hore noocyada Pro iyo Pro Max waa maxay sababta ka celinaysa shirkadda Apple in 120 Hz oo haddadan ay tahay asaasiga teknolojiyada taleefanada cusub maxay ugu soo kordhin laayeen noocyada hoose 120 Hz okay su'aasha ugu weyn ay isweydiinayaan waxay tahay iPhone 16 iyo 15 midkee iibsanaa haddii ay haysatid iPhone 15 Pro iyo Pro Max wax badan oo 16 oo kaga duwan yahay ma jirto laakiinse haddii ay haysatid iPhone 15 iyo 15 Plus markaasi waa iibsan kartaa noocyadaan cusub iPhone 16 sababtoo iPhone 16 iyo 16 Plus wax badan ayaa laga soo bedelay RAM-ki waa la soo badiyay GB ayaa laga soo dhigay sidoo kale qaybtaani oo chipset-kani A18 ayaa laga soo dhigay saas darteed haddii kuwii yar ay haysatay iPhone 16 kan waa iibsan kartaa haddii laakiin Pro iyo Pro Max 15 ay haysatay iPhone 16 wax badan kaaga maqnay ma masaltiin daawashada muuqaalkaani